Aragtidaadu waa ii muhiim. Ila tali walaal. Mahadsanid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawow saaxiib. Aad ayaan kaaga mahad celinayaa daawashada videogan. Videogan waxaan kaga hadli doonaa maanso. Maansadu waxay salka ku haysaa qiso. Qisada horta han kaaga dhaco. Qisadu waxay ku bilaabmi doontaa sida tan. Waxay ahaayeen wiil iyo gabadh aad u da'yar, meelaha 15 jir, 16 jir, 17 jir meelahaas. Wiilku gabadha asxaab ayay ahaayeen aad iskugu fiican, iska warhaya, iska xaal og, iska jecel familkooga. Wiilkii gabadhaas muddo ayay asxaab ahaayeen ilaa intay soo kaceen muddo ayay asxaab ahaayeen. Gabadhu waxay ahayd gabadh aad u qurux badan, maaran, timo dheer, dhexyar, ilka cadcad, farooyin madow. Waa sida uu ku tilmaamay. Dherer fiican leh, welina aan qof la sheekaysan oo sheekadaba aanan garanayn. Meeshii qisadan ka dhacday waa city, waa magaalada ama gobolka city ee Itoobiya ku yaal. Halkaas ay dadku ku noolaayeen. Maasadana waa laga dhex arki doonaa. Wiilkaas iyo gabadhaas waxay isku qaadeen jacayl dhaba, laakiin uma bilaaban jacaylka iyo sheekooyinka waxu kama yaqaanaan. Way isku sheegan garan waayeen, gaar ahaan wiilku ayaa gabadha jeclaa. Wuu u sheegan kari waayey. Wuu og yahay inuu jecel yahay, laakiin waxa ka dhexeeya walaaltinimo ah ama wanaag ah ayaa kala weynaatay inuu gabadha uu jecel yahay oo arrinkaas uu sheego. Waayo taasaa kala qurux badnaatay. Almuhim, wiilkii waddanka ka dhoofay jaamacadda iyo waddan kale u aaday. Gabadhiina waxay ku hadhay waddankii ayay ku hadhay. Haddaba iminka waa la weynaaday, da' fiican baa la joogaa hadda. Wiilka gabadhii wuxuu ka dhaadhicin kari waayey inuu berigaa jeclaa iyo in kale. Jacaylkii markuu sheegay waxay dhahday, maad igu ciyaaraysaa, aniga walaalkay baa tahay, sidee jacayl iminka igu maaweelinaysaa, iyo berigaaba waan ku jeclaa, iyo wax caqligala maahane markaad halkaa tagtay maxaa iska kaa bedelay, aniga walaal ayaan kuu ogaa. Haddaad i jeceshay beriga ayaad ii sheegin lahayd. Fursaduhu ay fiicnaayeen, aniguba aan ilka ku yeelay, aan sawax ugu sheegtay aan garan lahaa, dumarnimo darteed ama xishoodkii. Hadalka ayaan kugu badinin. Maasadan ayaa laga sameeyey qisadii. Wiilkii ayaa bulshada la soo wadaagay inaan loo sheego jacaylkii uu dareemayey iyo sababihii ka manciniyey inuu gabadha u sheego. Sidoo kale wuxuu ku weydiisanayaa inaan lala taliyo. Talo ahaan bay ku timid maasadan inaan lala taliyo. Maasada ayaan idin dul mari doonaa, kadibna wixii talo ah ee wiilka ku gargaari doona ayaan kaga hadli doonaa. Bal aan ku hormaro. Waxay ku bilaabmaysaa, inan yahay sir baad ii ahayd 10 sano hore, sadrigaad ku taal bay haddeed seeta celinayne, samirkaan dugsanayaa markani surinta soo jaraye, sidaad igu ogeyd buu qalbigu kuu sugayaaye, sahay kale ma haysto adigu kaa dhur sugayaaye, sahay kale ma haysto adigu kaa dhur sugayaaye, sankaraad xanuun laa ka roon silacan kuu maraye, sankaraad xanuun laa ka roon silacan kuu maraye, si walaalnimaad ii jeclayd sabanada badane, aniguna suntii caashaqaa seedahay tiraye, anigoo sax iyo maan u garan inaad saluugaynin, seetada jacaylkee bogiyo beerka lay sudhaye, saaxiibniman eegayiyo sumcaddeeniye, suugaan kuma macnayn karo sidaad iigu weyn tahay, suugaan kuma macnayn karo sidaad iigu weyn tahay. Sinjigaad ka dhalata ahaa sayid dhashiisiiye, sinjigaad ka dhalata ahaa sayid dhashiisiiye, Soomaali weyn baad u tahay, sumal wanaaganiyo Soomaali weyn baad u tahay,
sumal wanaaganiye sifnahaaga ruuxlan dunida saacad qura imane sunnihiiyo cibaadada adaa seegin abidkaaya sitidaad ku taal baa nasiib saatirka u qoraya sitidaad ku dhalatuu nasiib saatirka u qoraya saymogeenyeeleeyay markaad socodka laafiyooto saqaryari dhaqaaqiyo markaad gacmaha sii dayso sanku neeflaha wada sahwiya saaqdi ruuxdaniye sanku neeflaha wada sahwiya saaqdi ruuxdaniye sanqaroor indhaha saaranoo saami quruxdiile sanqaroor indhaha saaranoo saami quruxdiile sunniyaha iswada saaranee salaan kala bakhayleynin sunniyaha iswada saaranee salaan kala bakhayleynin sunniyaha iswada saaranee salaan kala bakhayleynin saafiga ilkahan laga dhigee kala sariibaynin saahood ilaahiga dabnahan sahayda loo siiyey sigib tiran mudowgiiyo timahan garbaha wada salaaxayo seerka dhabanka xaadaysan iyo saamiyada toosan seerka dhabanka xaadaysan iyo saamiyada toosan sadrigiiyo laabtan seesanee saxan samayskoogu suun lagu adkeeyiyo dhexdani sar kale doonaynin sumad gaaraleeyay hantiday sawracii xoorar cayneed sumad gaaraleeyay hantiday sawracii xoorar cayneede saatirkii ku uumaa qurxiyey saaqdi ruuxdaniya sideen kugu iloobaa sacdiyaay sikatay ruuxdaniya ninkan qiso badan baan dee kolley kasoo dhacnay waad fahantaayaan malaynayaa wiilku gabadha ayuu aada u macneeyey gabadha wuxuu kasoo bilaabay quruxdeeda iyo asalnimadeeda oo ahayd suugaankuma macnay karo sidaad iigu weyn tahay sinjigaad ka dhalataa ahaa sidii dashiisiiya qof waxaad kasoo jeedaa dad boqortooyo ah oo dad sare ayaad kasoo jeedaa soomaali weyn baad u tahay sumal wanaaganiye sumal waxaa la dhahaa neefka xoolaha lagu daro siduu ciyaal uga sii beermaan ama naylo ama waxaro ama waxay doonaan ha sameeyo laakiin waxaan u fududaynayaa aan hoos ugu soo degaya dadka aan soomaaliga waaweyn garanayn dadka soomaaliga waaweyn garanayana dee kolley macnayn uma baahnide hayla yaabin sumal waxaa la dhahaa adhiga ama idaha wanka lagu daro sida uu maxay ahayde shinni qurux badan ama ubad qurux badan ama ubad caana badan ama ubad weji qurux badan leh ama kalar qurux badan leh oo u dhalo sumal ayaa la dhahaa isagana wuxuu dhahay sumalka aad kasoo jeedid tafiirta aad kasoo jeedid isir ahaan aad kasoo jeedid ayaa soomaali weyn ahaa soomaali weyn baad u tahay sumal wanaagani quruxdaa kugu taal iyo udgoonka iyo dherarka iyo dabeecadaha uu soo macneeyey soomaali weyn baad u tahay qof soomaaliya tahay soomaali weyn baad u tahay sumal wanaagani iyo sifnahaaga ruuxlaan dunida saacad qura iman sifnahaaga waa qofka marka aad u sheegaysid masalan xabad aad u sheegaysid yaa sifnihiisa la dhahaa ama sifooyinkiisa sifnahaaga ama sidaad u eg tahay ama calaamadaha aad leedahay ama quruxda aad leedahay qof kula mida adduunkani ma iman saacad qura ma iman waa aragtidiisa sifnahaaga ruuxlaa dunida saacad qura imane sunnihiiyo cibaadada adaa seegin abidkaaye waa xaggii diin ahaaneedna way ka dhisan tahay oo sunnaha iyo cibaadadana adaa seegin abidkaa waa wixii gabadh lagu dooranayay gabadh waxaa lagu doortaa maxaa la dhahaa jamaaliha maaliha nasabiha afartuu ninkan ku macneynaya soomaali weyn baad u tahay sumal wanaagniye sifnahaaga ruuxlan dunida saacad qura imane sunnihiiyo cibaadada
adaa seegin abidkahay citydaad ku dhalataa waa kan. City waa gobol ku yaalo dadka aanan garanayn Ethiopia oo gobolka shanaad Soomaalida qayb ka mid ah. Citydaad ku dhalataa nasiib saatirka u qoray. inaad city ku dhalitid nasiib ay city ku heshay, waayo adduunka iyada keligeed baa jirto saacad ku dhamin ima qof lamid ah. Citydaad ku dhalataa nasiib saatirka u qoray. reer city aad baan u salaamayaa maadaama gabadha caynkaas ay naga dhalatay. citydaad ku dhalataa nasiib saatirka u qoray. sayma geenye leeyahay markaad socodka laafiyood, marka aad dhaqaaqdo, anigana wada waan dhaqaaqaa. sayma geenye leeyahay markaad socodka laafiyooto, saqar yare dhaqaaqiya markaad gacmaha sii dayso. sanku neeflaha wada sahwiya saaqda ruuxdani. sanku neeflaha dhan ayaa sahwiya. sahwi waa garanaysa salaada ama laga sahwiya. yaa ilo hilmaama wuxuu u sameynay. sanku neeflaha wada sahwiya saaqda ruuxdani. sanqaroor indhaha saaran oo saami quruxdii leh. san yaroo qurux badan oo indhaha la dul saaray oo quruxda saamigiisii qaatay. sanqaroor waxay dhahaa sanka sanqaroor indhaha saaran oo saami quruxdii leh. sunniyahan iswada saaranee salaan kale bakhayleynin. sunniyaha koonba la dhahaa iswada saaran oo way haystaan. marka gabadha waxay leedahay sunniyo isku xidhan. sunniyahan iswada saaranee salaan kala bakhayleynin aan kala durugsanin. sunniyahan iswada saaranee salaan kala bakhaynaynin. saafiga ilkahan laga dhigee kala sariimaynin. saahood ilaahiga dabnahan sahayda loo siiyey. dabnaha qoon baa la dhahaa markaas udgoon ilaahi ah oo u dhalada oona matalan dad waxaa jira marsada maxaa kalaro kala duwan. adii ilaahay wuxuu ku siiyey kalar iyo caraf iyo udug ilaahi ah oo ilaahay adi ku siiyey. marka qisadu way dheer tahay ma jecli inaan idinku sii wado. waxa wiilku naga codsanayaa codsi. wuxuu dhahay ila taliya. gabadhii si kastaan jacaylka ugu sheegay weli hadda way sadiqi laadahay. qalbigeygana waan ku jiraa oo kama baxsanin. laakiin waxaan ka welwelsanahay inta aan kasoo maqanahay inay xidhiidho kala yeelatay. inuu qof kale maanta garab joogo inuu la leedahay iimay sheegin way iga qarinaysaa. laakiin arrinkayga markuu soo qadimay way la yaaban tahay. waa qof aan meel kusoo wada kornay ciishi milixaan soo ahayn walaal aan ahayn iga qaalisan walaalaha kale ee la dhashay. sidoo kale wuxuu dhahay gabadho aad ay iigu weyn tahay sidaan walaalo oo ahayn. gabadho aad bay iigu qiimo leedahay. muddona waan kala xishoon jiray inaan u sheego jacaylka aan dareemayo iyo yaraantii jacaylka aan dareemayay waan kala xishooday. iminkana ma ogi talaysku markaa sheegto aad ayuu uga fogyahay waddan kale ayuu joogaa. gabadhiina way rumaysan laadahay. haddaba wuxuu dhahay ila taliya inaan heli karo iyo inaan waayi karo. haddii ay helitaan tahay ila taliya dariiqadaan ku heli lahaa ama aan uga dhaadhicin lahaa. haddii ay waayitaan tahayna ii sheega sidaan uga simri lahaa. waayo nafteeda ilaa imika iyada kama hadhi karayso. laba siyaaboodba waanu kula talin karnaa. inaad iisoo dhigtaan comment aragtidiina arko. sidoo kale waan aqbali karaa haddii suurtagal tahay video recording haddii aad heli kartaan waa ila soo wadaagi kartaan. whatsappkayga xaggan ayuu ku qoran yahay pageka aad ka heleysaan. telephone numberkaygana waan kusoo qorayaa. taladiinu waan aqbali karaa. waad mahadsantihiin. haddii aad nagu cusub tahay sharaf iyo karaama ay noo tahay flow inoo saar. haddii aad horey noola sii joogtidna madaxay noo saaran tahay. mahadsanid aad mahadsantihiin.